madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ayaa maanta waxa uu xariga ka jaray carwada Boorama Business Fair waxaana halkaasi shirkadaha iyo ganacsatadu ku soo bandhigeen badeecadaha iibiyaan iyo wax soo saarkooda waxaana soo qabaqaabiyay dhalinyaro aqoon-yahano ah carwadan ayaa waxa ugu horeynba ka hadlay Ilyas Cabdiraxmaan Xuseen oo ah madaxa carwada Boorama Business Fair kana warbixiyay ujeedada carwadan الدولار بس فاهم 16 waxaan soo dhaweynayaa waqtiga sharafta leh ee laga qayb galaya bultaanka carwada madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Sayidi loo saaciyo maaha markii ugu horeysay carwo noocan oo kala ah lagu soo bandhigo sanadkii 2015 ayaa ahayd carwada mid la mid ah lagu soo bandhigay bandhigan carwada ayaa waxa sidoo kale ka hadlay maayirka magaalada Boorama Maxamed Xuseen Maydhane iyo wasiirka warshadaha Shucayb Maxamed Muuse waa waxa la qabato ah umadinay hormar ku gaadho ummad walba waxa laga qiyaas qaatay horumarkeeda ganacsigeedu halka uu taagan yahay ganacsiga iyo carwooyinka noocan oo kale ah kulley dadkeenu waxay waddankeenu waxa weeyaan dawladdu waxa laga rabaa inay diyaariso deegaan lagu ganacsado fiican nabadgelyo laakiin inay dadku wax helaan ugu dambeyntiina waxa carwadaasi hadal mahadnaq iyo dhiirigelin iskugu jira ka soo jeediyay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici waxaana hadaladiisii kamid ahaa Nasrakiin Jacfar Xaaji Bashiir telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Boorama.